السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkastoo badankeenu aynu filfisha u isticmaalno inaynu cuntooyinka ku darsanno si ay cuntada u wanaajiso, haddana filfisha, gaar ahaan filfisha madoobi, waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. Waxaana ku jira faytamiino iyo macaadin badan oo jidhka muhiim u ah. Faa'iidooyinka caafimaad ee filfishu ay leedahayna waxaa ka mid ah waxay kordhisaa dheecaanka burburiya cuntada, sidaa darteedna waxay u fiican tahay dheefshiidka. Dhinaca kalena waxay aad ugu fiican tahay dawana u tahay shubanka, waxaana yaraysaa calool istaagga, waxaanay meesha ka saartaa hawada gasha caloosha ee keenta dibirada. Waxaanay filfishu la dagaalantaa dufanka badan ee jidhka ku jira, waxaanay dawo fiican u tahay hargabka iyo caabuqa ku dhaca sanka. Waxaanay ka ilaalisaa dhiiggu inuu yeesho dufanka la yidhaahdo kolestaroolka, waxaanay jidhka ka saartaa sunta. Waxaanay filfishu caan ku tahay inay la dagaalanto jeermiska. Dhinaca kalena, dadka qaba xanuunka gaastariga waxaa lagula taliyaa inaanay isticmaalin filfisha sababtoo ah waxay ku siyaadin kartaa xanuunka gaastariga. Ugu dambeyntiina, Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taam ah.